iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isagu hayo ubadka oo ciduu doonana siiyo ciduu doonana u diido isla markaana uu ilaahay shay kasta sabab u yeelay ayaa waxaa jirta in dhowaan la daaqaaday falal si maalinla ah loo sameeyo oo keeni kara in qofku gaar ahaan raggu ay noqdaan madhalays waxaana jiray sababo hore loogu aaneynayay inay sababaan madhalaysnimada sida cabitaanka sigaarka oo kale mareegta baahineed ee dhanka caafimaadka wax ka qorta ee Women's Health ayaa baahisay warbixin lagu soo ururiyay natiijooyinkii daraasado laga sameeyay arrintaasi kuwaas oo cadeynaya inay jiraan sababo kale oo keeni kara madhalaysnimada oo aynaan badankeenu wax fikrada ka haysan waxaa ka mid ah in daawashada faraha badan ee telefishinadu ay yareyn karto oo hoos u dhigi karto xaddiga shahwadda ay ragga ku jira iyadoo baaritaanadii lagu sameeyay 1200 dhalinyaro caafimaadkoodu wanaagsan yahay ah oo qaarkood in badan daawadaan TV-yada qaar kalena si badan u isticmaalaan laptop lagu ogaaday in kuwa maalintiiba 5 saacadood daawada TV-yadu inay yihiin kuwa ay jirkooda ku sii yaraanayso shahwaddu ama manidu xilli daraasadu soo bandhigtay in isticmaalka kombiyuutarka desktop-ku aanu saameyn weyn ku lahayn madhalaysnimada marka la dhinac dhigo isticmaalka laptopka iyadoo arrin khatar ahna lagu tilmaamay in dhabta la saarto laptopka marka aad isticmaalayso kaasoo khatar u keeni kara dhammaan xididada taranka hoosna u dhigi kara xaddiga manida ee jidhka ragga ku jira